iyadoo webiga Shabeelle uu fatahaad ka geystay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa deegaana ka tirsan magaalada Beledweyne oo dhaca waqooyiga ayaa waxaa kormeer ku tagay ururka iskaashatooyinka beeraleyda ee midnimo kuwaasi oo u guulgalay xaaladda dadka beeraleyda oo ay saameyn xooggan ku yeelatay dalagyadii ay beerteen ugu horeyntii qaar ka mid ah dadka beeraleyda ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay fatahaadda uu sameeyay biyaha webiga Shabeelle waxaan na soo booqday guddiga midnimo ayaa na soo booqday booqashadaasoo cabashadayna ay tagtay meel kasta oo ay martay oo dhibaataysan oo biyaha fatahaadaha ay na soo barakiciyaan bari magii laga xiray annaga qoraxsan ay u soo jabsadeen annaga ayna barakiciyaan hadda waxaan dhex taaganahay waa beertii koowaad dalaggeedii iyo wixii dhibaatooyinkii inoo geysteen waa midda hadda muuqato kuwa kalena way ku sii soconaa waana tagi doonaa macaltuulida waa tagi doonaa marka dhibaatooyinkaas aad iyo aad oo naga qabsaday xagga biyaha ayaa hadda codsi aan u nahay $570 oo cash intaas ayada markii dawladda waayay biyihii ka soo ciiray daanta bari ka soo ciiray ayaa ku soo dhuftay dadkeeda baad ma haysanin waa la dulmaray saaweed dadka meeshaan dalku baabay waxa weeyaan waa nooc kala duwan sida galeydii digirtii maxaan ku dhahay babaygii ay nooc khudaar waxay ahaataba leentii ayaa hadda khatar ku jirto oo biyaha ku haysaa oo meeshaan waxa ku dhacay koorisi waxa ku baabaaday 470 geed oo leen ah ayaa ku nafwaysay 3 sano oo 6 bilood u dhaxayso ayaa dalagga aan ku abuurnay aan hadaba ayuu naga dheefin midba markii shaygu soo gaduuto oo anfacsan lahaa ayuu dhimanay oo biyo baxda saleeleysa marka anagu 3 sano oo aan gadaal u shaqeynay ayaan macnaha waxaan codsanaynaa ninka ay qusayso inay macnaha wax noo qabtaan anaga beeraleeyanahay beerahan ka shaqaysanaa waxaan ma artiyay hay'adaha sharafta ka codsanaynaa in ma artiyay gargaar degdeg si kastaba ha noqoto ma artiyay makiinada cagafta ma artaw abuurka xoog waxay na gelin karaan oo kanaalka sidiisa horta nagala jiro juwaan waab lagu kari waay inay ma artiyay cagaf la keeno oo maxay hataw shamito la keeno oo laga shaqeeyo ayaan horta ka rajaynayno dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka beeraleyda ee midnimo oo goobta ka hadlay ayaa yiri marna biyaha saan u galaayo marna anyaxa ka qaadayo hadda biyi waxay ugu helisay marka shibiraha way ka edeen raaraha ku dhisan beeraha waa u jeedaan shibiraha geeb loo saarnay raarta biyaha soo galay beer biyo ku jiraan lama dhowri karo eber way marka way ka dhamaatay marka bibaxadii way ka qaadatay marka anoo ku hadlaaya afka midnimo guddiga midnimo gudoomiye ku-xigeenka midnimo anigoo afka ku hadlaaya afka midnimo ku hadlaaya waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso haday tahay dawlad haday tahay hay'adaha localka iyo internationalka waxaan ka codsanaynaa ummadan hadda maanta saan u baabayso u joodana in laga soo gaaro ugu dambeyn gudoomiyaha iskaashatooyinka beeraleyda magaalada Beledweyne oo goobta ka hadlay ayaa codsaday in wax loo qabto dadkan ay beerahooda ay ka baabi'iyeen fatahaadaha uu sameeyay biyaha webiga Shabeelle waxaan soo booqanay tuulo kaahin oo beeraheeda aad u jeedin qaabka macnaha biyo baxada ama fatahaada biyaha ay u gashay marka waxaan u sheegaynaa heer gobol iyo heer degmo iyo Hirshabeelle iyo dawladda federaalka ay wax ka qabtaan sababtoo ah waad u jeedaan sida macnaha biyihii iyo beerihii isku xidhay Cabdinuur Cismaan Adan Carays idaacadii TV-ga caalamiga SBC magaalada Beledweyne.